السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدأ كلنتو ناس نكون سود واد برنامج كنا مؤكتين عاو هبين كلا أنسو قادم دونا فيلم دي كلاسيك هاي سجاشمات كي بوليوود كأسماء إسلامية دونا لو فيلم أيام طبعا كركمسكو قادم دونا ومعلومات كده جوز لو دعنا لو فيلم معانة سومالي دي جعليهن إندي سامين كله سادته وإسلامية مد ودامني فيلم كفيلم هذا فيلم كوحلا طبعا وعن سن وسامين تبدن إندي إسمين ومن سنتريك أو تريشه جامي كتهاي دحالك وكتجان إيجنا منكشاش إزدري كالنت هذه يو سنة دول كي ومتري جوفيند oo dabcan taariikh bitaariikh iyo daay kilo hasman la biladii ku qaatay caadi ma riish kabur uu ku jiray amrish bur uu ku jiray sidoo kale film kale tan waa film kale macaan oo jacayl saddex geesooda heesa aan dhulka dhacayna dabcan ku jiray waa arzu akshay kumar seef calaqan wada sameeyeen sidoo kale maduri digsi ay ku jirtay amrish buri kaalintiis uu lahay laba film aad u macaan waa inkastoo film ahaan u daamani weyn dhaxalku ka tagay bilada lagu qaato guusha uu gaaray laakiin labada film bo repeat value waxay kamid yihiin labada film aad loo jecel iyo aad loo daawado marka soo dhawaada caawa marka daamani iyo arzuan ku baashareena xasuusan galeena inkastoo xasuusa zaid aysan ahayn hore xasuusa dhow ay yihiin jiilka maanta waa qaylan doona ma dhow ay doona sababta sagaashamaadka waa dilugta galasho dhalinyarada hadda waxay dhahan ugu badan team Zaki Medi waa naga tagtay ustaado laakiin aniga 90s era ayaan dabcan iska leeyahay xilligii 90s ka aad iyo aad u jecelahay waqtigaas waa waqtiga shaleemada ku raaxaysan jirnay madaxa aan sano u soo qaadnay marka soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna bartaan subscribe noo saar waa madala xasuuso ku galno aflaantii hore jilayaasha hore kaga sheekaysanay iyo sheekooyinka update-ka maalinlaha ku soo qaadano waa meel noo gaar ah oo dabcan qof kasta markuu firaaqo uu soo helo intuu daawado ra'yigiis dabcan nala wadaago anigana meeshaan dabcan jooga odayga meeshaan ahay aan wada baashaanna marka saaxiibayaal marka hore waxaan ku bilaabeynaa filimka daamani waa mid kamid aflaanta lagu jecel yahay Raj Kumar Santoshi uu sameeyay director ka ahay sidoo kale Sunny Deol iyo Manakshash Dari Rishi Kapoor Amrish Puri ay sameeyeen 30 Abriil 1993 filimkan soo baxo 150 daqiiqo socon ama ku dhawaad 2 saac 55 daqiiqo 3 saac wax dhiman oo filimkan soconaa saaxiibayaal daamani markii laga hadlayo waa film dabcan ka hadlaya legal drama sheeko kiis maxkamad ah oo aan inaba caadi ahayn sidoo kale Raj Kumar Santoshi asaa director ka ah asaana sheekada qoray waxaa sidoo kale xusid mudan Barash Dawal uu ku jira filimkan sheekadana waa ka warqabnaa waxay ku saabsan tahay daamani title kaas waxaa jirayso gabadha dabcan Manakshash Dari inay marqaati ka noqonayso dabcan gabar gurigeeda ka shaqeyso oo dhibaato u geysanayo dumaashigeed oo kufsanaya iyo markay dhacdo kiiska maxkamadan keenay dhibaatada ay la kulmayso Rishi Kapoor xitaa marka hore support kuma siinayo waxa maxkamadda kaga horay Amrish Puri oo mitid ah oo wax kasta dabcan oo run iyo been isku daray kadibna ninka cabtooyga Sunny Deol garab siinayo doorka Govinda markuu maxkamadda tago waxa ka dhacay lama iloobi karo haddaba filimkan 30 Abriil 1993 markuu soo baxay isla markiiba wuxuu la imaaday saameyn caadi ah tiyaatarka wuxuu ka noqday super hit dadka qaar kood waxay dhahaan blockbuster kuwa waxay dhahaan hit laakiin Maharashtra Bambayo kale wuxuu ka noqday blockbuster overall daamani waxa la dhahaa super hit ah ganacsigu waxa ka weyn fariinta uu soo gudbiyay iyo sidoo uu noqday film aan la iloobi karin sababtoo ah sagaashamaadkii sideetamaadkii waxay aad male dominated era zaman oo India atoorayaasha ay haysteen filimada laba atoor saddex atoor wada jilayaan rag wada qamar film kasta atoora iyo raganimo loo daawanayo waxa ka soo dhacahay film fariin xasaasi ximbaarsan kufsi iyo taacadi in laga hadlo hindi la yaab ahaan jirtay sheeko dumar qusayso film dumar saameynteeda wadato waxay noqotay wax la yaab leh oo dadka Indi indhaha ay kala qaadeen markii ay daamani daawadan oo ay dacan la ogaaday in dumarka ay ku dhiiran karaan maxkamad inay aadaan ay dacwoon karaan marka daamani waxa la dhahaa waa film malaayiin qofood oo haweenka dumarka ee dacan Hindi dhiirigeliyo oo dhibaato badan taacadi lagu aamusi jireen inay maxkamadda aadaan marka waa film waxa waa film kaliya ma ahane legacy uu ka tagaan inaba caadi ah Manakshash Dari doorka ee matashayna waa doorkeeda ugu fiicnaa taariikhda film intay jilaysa laakiin wixii markaas ka dambeeyay waaba ka carartay industry India sababtoo ayada u qalantay inay qaadato national award iyo filmfare atirashada ugu fiican meel kasta ayaa gabadhan la gacan bidixay dan kadibna waaba waxay dhahday bis waa I quit Bollywood waaba ka tagtay wixii commitment u yaala shaqooyin iska dhameystirtay bartamii sagaashamaadka markii la soo gaaro iska guursatay Mareykan u guurto mac salaamay dhahdo meeshan luqaafada badan marka meeshan Bollywood ka hadda kaliya isma qolfay weligeed isma qolfay jiray Manakshash Dari filmfare award qaadanin oo marcida la dhigay iyo dhaxalka ay ka tagtay inaca markaan eegno Sunny Deol iyo doorkiis memorable performance iyo Govinda uu sameeyay lama iloobi karo wuxuu ku matalaa door alcoholic ah erayadu adeegsada taariikh bitaariikh date after date taariikh ku dhiibaysa markuu maxkamadda joogo soo u dhahay caadi ma aha iyo erayga dai kilo haatan waxay noqotay uu dhahay gacanteedu waa 2 kiilo iyo bar qofkan ku dhuftan waa burbura labadaas dialogue Sunny Deol kama harto every stage meel kasta uu tago biliis waxa la noogu tuura laha dadka ku dhex jira xataa taariikh inuu dhaha jirto dai kilo haas inuu adeegsadana waa qasab marka laba dialogue wuxuu adeegsaday dhaxal aan caadi inuu ka tagin bandhigaas uu sameeyay Sunny Deol wuxuu ku helay
abaalmarinta Filmfare Award qaybta caawiya ugu wanaagsan iyo National Award ku qaatay qaybta caawiya ugu wanaagsan ogaadana filimku wuxuu soo galaa kala bar markuu socdo 45 daqiiqo kaliya ku leeyahay Sanadol hadan legacy-gaas oo walida ayuu ka tagay saaxiibayaal Amrish Puri same like that wuxuu qaatay Sanadol culus oo qaato inaba aanan caadiyan ilaa hadda la wada jecel yahay Amrish Puri iyo Sanadol iyo Manakshash Isdari iyo Rajkumar Santoshi afartaas waa afar guul u saaxiiba sababtoo ay gayaar wada sameeyeen 9kii Blackbuster ah Damani 93 wada sameeyeen 96 waxay wada sameeyeen Jatak oo super hit waa saddex ana kala dhicin dhinaca kale ma ogtiin Damani waxa ku jira Amar Khan hal heeso stage ka qaadaya muuqaal martii ku leeyahay heeskaas kaliya ka soo muuqda ee saaxiibayaal sidoo kale tan markii la fiiriyo waxyaabo kale ka soo qaadan karna waxa qaybkii awaadiska Sanadol kaliya ma uusan ku qaadan Damani waxaan soo qaadan karnaa in dabcan sida diiwaan gashan uu ku qaatay best director ninka odaga Rajkumar Santoshi iyo sidoo filimka uu sameeyay best director ku qaatay abaalmarinta caanka Filmfare Awards best story waxa ku qaatay Sutanta Gupta best sound waxa ku qaatay Rajesh Jan waa biladaha lagu qaato waa macnaha atirisho Filmfare Award tartanta gabadhan Manakshash Isdari ma aysan qaadan Laadar Amrish Puri tartan ma uusan qaadan sidoo kale ma ogtihiin Damani in dabcan ay qaateen shirkadaha kala duwan ee Koonfur India hadii noqoto Tamil iyo Telugu iyo dhammaan luqadaha kala duwan ee Koonfur India waa qaateen si filimkan ugu celshan laakiin film oo actorial waa jileen ma ahana dumara inta badan ma jileen sida laga warqabo laba actor iska macquul ah kan Tamil ugu macquulsan oo ka soo muuqday dabcan ninkii odaga ahaa ku jiray markii la fiirsho Bravo iyo Jiyarama sameeyay laakiin gabadha Ravida qaadatay doorkii Manakshash Isdari ayada qaadatay 27 May 1994 soo baxay Blackbuster noqday bilada badan ay ku qaadatay gabadha lagu magacaabo Rifafi filimkan sida ay u jishay waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibayaal ma ogtiin filimka Damani in haatan uu iska leeyahay Shahrukh Khan gatay kambanigiisa Rajilis ayaa toos ula wareegay filimkan mar dhaweedna wuxuu ku wareejiyay Sanadol ka cusub Damani 2 inaan sameeyo raba waliba dabcan wiilkiisa Karan Diyola wax ka jila san inuu doorkiisa ku soo laabto waa laga yaabaa marka Shahrukh Khan Sanadol ku wareejiyo uu dhahay waa sameyn kartaa ama remake dib ugu celi ama Damani 2 samee laakiin rights-ka hadda Damani gacanta wuxuu ugu jiraa Shahrukh Khan ugu jiraa Damani kaliya ma Arjun xitaa oo Sanadol uu sameeyay 86 oo Blackbuster weyn ahayna Shahrukh Khan kambanigiisa Rajilisa gacanta ku haystaan si diiwaan gashan qiimeynta IMDb rating filimka Damani waxa la siiyay 7.8 dhibcood waxa lagu qiimeeyay 4400 qof oo codayn inuu film wanaagsan u yahay Damani waxyaabaha kale ka soo qaadan karna waxa qaybka saaxiibayaal filimkan marka mowduucan qaybtan dul istaagna sababta Manakshash Isdari filimkan saddex maalin la duubtay shootinka markay duubtay director Rajkumar Santoshi qoftan aad u jecel qof dheer oo qurux badan waaye waa jeclaada jecel kaliimaan wuxuu dhahay qofkii waxaan ku dhiibay gayaal Damani hadda ku dhiibay inaan ku guursaarba waxay dhalniyo raali ah adeerkiya teeradaniyo isma guursa karnay raali ah waaba ku xanaaqiyo filimku ka saaray ayadana waa ka tagtay then kadib wuxuu la wadaagay Sanadol wuxuu dhahay Sanadol wuxuu dhahay waxa ku soo dartaa Dimbil ka baadiyo Sanadol wuxuu Dimbil isku haysteen xoogaa waa isku xantaa Dimbil ku soo dar Dimbil ajili karto filimku dhahay Rishi Kapoor wuxuu Dimbil hadii la keen ani filimku waaba ka baxa sababtoo Rishi iyo Dimbil waagi Bobby markay wada sameeyeen xoogaa waxa la sheegay dhalinyaro ah waa uu dhaxmar jecel ah kadibna Dimbil waaba ka warqabna iyadoo yaraa waxa guursa Rajashkana ilmo u dhashay marka Dimbil baabkayga ma gali kariyo baabkeedana ma gali karta markii aan la keenin u dhahay wuxuu soo jeedi u dhahay Sir David ha loo dhiibo Sir David Sanadol wuxuu dhahay war Sir David hada filimka la keeno u dhahay Sir David waa taqaan qof waxa uu jinniye badan oo sahmeeno superstar fariinta Arabta ina gudbisido u dhahay oo woman centering ee mowduucan gudbinaysid filimku uu ka weynana commercial u ekaana marka Sir David iska dhaafo odaga xariif waa Sanadol wuxuu diiday Sir David meesha imaada balaayo way in saameynta ay qaadato then Maduri Dixie uu dabcan Rajkumar Santoshi la kulmay Dixie way akhbashay filimka laakiin waqti uu weys dambeyntii producerada waxay dhaaniyo gabadha filimka saddex mama ka doobtay la soo heshiiyay way soo laabatay Manaksha filimka dhameystirtay maana aydi directorka xitaa warka ma dhixina la sida la xaqiijiyay marka Damani iyo Gatag labadaas filim waxay dhameystirtaa Rajkumar Santoshi ayadoo ay isla hadlin oo isku dhacsan yihiin odaga markay dhado gurkaaga ma rabin haddana saas ay commitmentiga wada galeen shaqadii la qabtay filimkan sidaas uu ku noqday filman inaba caadi ahaan sidoo kale saaxiibayaal ma ogtiin waxa la filimka Rajkumar Santoshi markuu sheekada uu qoray Rishi Kapoor adaa atoore koowaad ka hordhay filimka wuxuu ugu sheekay Rishi Kapoor narrationka doorka oo Sanadol jilayo in laba qofood ay jilayaan Abukate waxa jilayo Omburi Cabtooyna waxa jilayaan ee dabcan Shakti Kapoor laakiin Santoshi markuu sheekadii uu fiiriyay hal xabuu ka dhigay Sanadol u dhiibay taas oo Rishi Kapoor aad kaga niyajo upset ku noqon sababta uu dhaw wixii lagu la balmay waa laga baxsan Santoshi wuxuu dhaana writer ee sheekada qoray hadba sidaan u dhigaa aan ku haboon u dhahay sidoo kale Rajkumar Santoshi wuxuu dabcan ka difaaci waayay Rishi Kapoor dhibaatada u geysteen producerada raggii filimka lahaay maadaama Sanadol filimka lagu soo daray Santoshi qorshihiisa wuxuu ahaa filimka in Manakshash Isdari Rishi Kapoor hogaamiyal ka yihiin saas shaleemada lagu saaro then kadib dadka markay shaleemada daawadan Sanadol ku arkaan ay yaabaan laakiin producers waxay dhaheen
annaga we have to cash on Sanadol macnaha xilligaas Sanadol the highest big uu joogay gayaal waa uu sameeyay 92 93 91 90 waxa waa rag 90 di sagaashamaadkii la dhaho odaga xilligaas meesha ugu sareysay joog marka waxay dhaheen producerska sidee suurtagal ku tahay anagoo Sunny heesano in filmkeena Sunny oo aan lagu gadeen macquul ma yahay waxaas ma jirto Santosh adi filmku waa sameysay anaga producers markaas waxay bilaabeen poster waaweyn oo Sanadol na film ku dhajiyaan Riisha Kapoorna filmka poster dhan aan la siin Riisha Kapoor taasna uu ka sii niijaba odaga si u buusay marka teamka film producer kan waa buusay director kan marka hore buusay waxa kale ka sii daran markii filmka shaleemada la saaranay oo dadka ay daawadeen waxay la yaabeen oo surprise ku noqotay Sanadol markuu second half ka dambe soo galay iyo waalida filmka soo u jilay u kala kacay 45 minute heer waxa la gaaraa sida faktiga diiwaan gashan gobolka ee shaleemooyinka Maharashtra Bombay ku yaalo demandiga dadka intuu batay aniga shaleemadan tagaaba waxaan walaayahaba filmka halka saac hore ma barayo markuu Govinda soo baxayan soo gala taas oo keenta la qolooyinka distributorska filmka iskale iyo kuwa shaleemooyinka iskale inay laba show sameeyaan laba show macna ama laba dhimaan tigidkan waxa daamani dhameystiran daawo waxa waa iska tusaalahan ka soo qaadba konton rubiwa qofna wuxuu rabaa inuu daawado Govinda meesha ka bilan kala baro imaana kala barka 100 rubi lagu daawana macnaha for the sake of Sanadol sida uu saameynta filmka ugu yeeshaa lagu sheega macnaha film dhameystiran ma kala inaad daawatid waxa baxsanayna konton rubi laakiin waxaan rabaa inaan daawado meesha Sunny ka soo galaan wax kale ma rabiyo 100 rubi baxsanay meeshaas marka uu Sanadol saameynta uu daamani ku gaaro waa Sanadol iyo waxa la kala Amitabh Bachchan filmkii ii sheeg aakhir rastam waa maqan film oo asigi iyo waxa jiray dabcan kula jireen Hema Malini iyo Rajnikanth Timi filmo waxa jira oo aad u kooban India oo atooraha door caawiye u leeyahay ama caawiye ka yar hadana saameynta huge noqoto marka daamani oo kale waxa la galshaa qaanad gaar ah not lead role hogaamiye ma ahan hadana dartiisa filmka loo daawado sida wax badan ku diiwaan gashan oo historical oo soo qaadan markii ninkana ra'yiga ka dhigay sheekooyinka daamani waa ku dhaana wax badan ka sii diiwaan gashan oo la soo koobi karin laakiin hadda inta ugu muhiimsan ka soo qaadanay idinkana ra'yiga ka dhigay xitaa J.K. Shroff ma la rabo in filmka loo dhiibo laakiin J.K. Shroff wuxuu dhahay filmka ma jilaa sababtoo Santoshi hadda ka hor wuxuu dhahay J.K. Shroff atoora uma qalmay wuxuu u qalmaa atooraha walaalkiis nin weyn noqdo dhahay marka wuxuu dhahay aniga filmkan in shalay dhahay saas uma sameeyay dhahay filmkan hadana dumar hogaamiye ka tahay dadka dhan waa yasaan filmka waxa loo arkaa Atirisha hogaamiye ka laakiin wax kale ka soo baxay meesha oo dhaxalan caadi ah fariinta filmka guuleystay Sanadol si libaax la u jilay iyo Manaksha Shdari sidoo kale kaalinteeda qaadatay marka ra'yigeena ka dhiibtay marka waxaan soo qaadanaa filmka Arzu Akshay Kumar iyo dabcan wada jinaan Saif Ali Khan 98 filmkan soo baxay commercial ganacsi ahaan Arzu flop lagu leeyahay laakiin waxa ugu cudur daarayna film soo daahawa India haduu film soo daaho waa ka dhintaa macnaha almost Arzu 98 kii soo baxay laakiin waxay ahayd filmkan saaxiib in la daawado 96 kii laba sano ayuu dib u dhacay sida diiwaan gashan xitaa 98 kii maahane 99 kii soo baxay 19 Maars 1999 marka 3 sano ayuu dabcan waqtigiisa ka horeeyay that's why marka Arzu uu flop u noqday laakiin sida kale macaan mu ahaay sheekada jaceelka ii sheeg heesaha familiga dulqaadka wala film Arzu hadda Arzu daawana filmna ku dhiman soo daawaya Love Triangle Saif iyo Akshay Kumar Madhuri Dixit caadi meem Lawrence D'Souza filmkan director ka ahay Amrish Purin oo ku jira waa ka warqabna aabihi dhamaayo ahay Rima Lagoa ku jirtay maamadii maana Bibi sidoo kale dabcan Barash wala ku jira shakhsiyaad badan ka soo muuqdaan filmkan Bombay iyo waxa lagu duubay London Edinburgh dhinacaas iyo Scotland ayaa lagu duubay si diiwaan gashan sidoo kale filmkan wuxuu ahay film flop oo guul daraystay 99 kii soo baxay back to back flop ayaa dabcan Saif Ali Khan wada sameeyeen iyo Akshay Kumar marka hore guushooda badneed laakiin markii dambe Kimad iyo waxa isku xigeen kan labadan film back to back flop ay ka noqdeen waa isku xigeen inkastoo Arzu uu soo dahay hadana waxa waa labadii hit joodiga ahay labadaba filmka flop ka noqdeen music-da aanu maaliga garaacay sidoo kale tan heesa aad u macaan ku jireen oo saaka warqabno u didnaariyaan kale heeska uu qaadayo Saif Ali Khan heeskaas caadi ma ah Kumar Sanu heesaha uu ka qaado war ma kala dhicin heesaha ku jira filmka kulli aad u wada macaan saaxiib saaka warqabno waxa kale soo qaadan karnaa Arzu qiimeynta IMDb rating ka 5 dhibcood la siiyay 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyo 1800 qofood ama 2000 qofood oo codeysan uu film wanaagsan uu yahay saaxiibayaal sidoo kale tan Arzu waxa ka soo qaadan karnaa filmkan waxa ku jirto hadaa xasuustiin action oo waxa jiro dagaal oo baarka dhacay jiro baarka markuu Saif Ali Akshay Kumar dagaalka uu galay kaligiis heestii filmadiis oo muusikada loo saaray Saif Ali Khan baarka kaligiis ku laabana heeskii ole loo saaray background aan caadi kadib labada markay baarka wada laabtaan
wada dagaalamayaan waxaa loo saaraa heeska oo ay dabcan ku wada caan baxeen min qiladatu anaare music background-iga loo saaraa sidoo kale waxaa la soo qaadan karaa waxyaabaha qaybka ee filimkan waxaa le arzu waa kanaabad inta ku qorantaaba 4 sano ee qaad filimka in la dhameystiro bilaabistiisa dhameystirkiisa shalay masaaristiisa 4 years qaad taas oo ay ka dhigan tahay marka all version u hayo waqtigiisa kusoo bixi lahay arzu waxaan isla hiidkiisa super hiidkiisa waa noqon lahaa sidoo kale waa filimka kaliya ee Saif Ali Khan iyo waxaa le Maduri Dixi ay wada sameeyeen sidoo kale tan waa filimka labaad oo Maduri Dixi Akshay Kumar wada sameeyeen dilto bagal Akshay Kumar muuqaal yar kooban ku lahay Arzuna door dhameystiran ku lahay waxa kale oo jirto 91 film lagu magacaabo Arzu ayaa shaqadiisii sunan sheeytay bilaabay najma la waday shatron kahansina kula jiray raad barbari madaafi laakiin filimkan Behlaaj Nahlani iska lahay kadib iska faara la galshay magacana markii dambe waxa loo adeegsaday filimkan Arzu hadda ka shaqeynana loo adeegsaday laakiin markii hore 91kii magaca filimkan sunan sheetiya sameystay diiwaan gashan balse ma aysan soo galin in dabcan la dhameystiro oo la daawado sida xogta ku diiwaan gashan waxa sidoo kale soo qaadan karnaa markii la fiiriyo dabcan Akshay Kumar filimkan wuxuu ku jilayaa nan smoker haddana saaseetaan shown macnaha Akshay Kumar sida caadiga waa nan smoker waa qof aan sigaar cabin waa laakiin filimkan waxa lagu tusayaa asigoo sigaar cabayo oo dabcan balwad sigaar ka dhigan laakiin caadiyan Kumar sigaar iyo waxaas iyo dadka wuxuu kamid yahay oo ka cagano shaqada hoos aan ku jirin balwada aan lahayn sida laga warqabo filimkan waxa loo bandhigay David Dawan inuu director ka noqdo laakiin wuu iska dhaafay sababtoo directorkan wuxuu aniga filimada shactiradan jecelna sameeyay laakiin sheeko love story ma sameyn kariyo marka uu ka cudur daartay inuu sameeyo sida diiwaan gashan Sonala Badri ayaa loo bandhigay filimka Atirisho kuwaad inay ka noqoto way iska diiday ugu dambeyntii laakiin Maduri Dixi dabcan looga dhigay Atirisho sida diiwaan gashan dhinaca kale tan Akshay Kumar waxa la dabcan filimka markuu sameeyay wuxuu ku jiray xilligiisa ugu adkaay oo waqtigii falabka faraha badan iska waday ugu dambeyntiina waa ka baxeen asoo wareersano 12 film falab ka noqdeen January ku soo laabtay dabiiqadii 99 oo samihid u noqday after January gadaal ma ba fiirin qarni cusub la guda gal 2000 hadii la guda gal guushiisa uu tago ilaa 2004 oo superstar ka noqday oo dad gadaal ma fiir laakiin waa adkaystay ninkan sababtoo ee 12 film isku xigtay ka badana falab ka noqday xilligaas waa xilligii uu falabka dhex dabaalanay odaga ee saaxiibal marka barnaamijkan ma ogtiin oo caawa ku soo qaadana daamani iyo soo kale Arzu intaas uu nooga eegay aad u maasantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته